بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحين هلكن إن شاء الله تعالى كتلمام الدونا خلادات أي كدعان dadku marka ay salaada tukanayaan khaladaadkaasoo keeni kara in qofka salaadiisu ay ka burto ama inuu qofku ajir fara badan oo uu heli lahaa uu ku waayo. khaladaadku aynu sheegi doono waxa kamid ah walaalayaal kuwa soo socda. dadka waxa kamid ah mid salaada xidhanaya isaga oo dhabarkiisu qallooco oo aan si qumaatiya u taagnayn. dadkuna waxay khaladka ku dhacaan marka ay masaajidka soo galaan iyaga oo degdegsan, imaamkuna uu rukuucsan yahay oo ay doonayaan in rukuucda ay ku gaadhaan. xidhashada noocan ahi waa mid aan sax ahayn, keenaysana in salaadu ay ka ansixi weydo. maxaa yeelay waxaa waajiba in marka aad salaada xidhanayso aad xidhato adiga oo si qumaatiya u taagan oo dhabarkaaguna toosan yahay. waxaa kale oo kamid ah mid aan salaadiisa ku xasilin oo qorob uga siiya sida tukaha oo kale. xasilooni la'aanta salaadu waxay keenaysaa in salaada laga aqbali waayo, siduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ee uu ku yidhi ninkii tukaday salaada isagoo aan ku xasilin tuko salaad ma aad tukane, ku noqo oo tuko salaad ma aad tukane. waxaa kale oo dadka kamid ah mid keligii safka galaya isaga oo aan cidina ku helin. nebiguna wuxuu sheegay in qofku keligii safka gala aanu salaad lahayn marka laga reebo inuu qofku cududaar leeyahay oo la waayo cid safka la gasha kana boqo in salaadu dhaafto. xaaladaas keligii buu safka galayaa, salaadiisuna waa sax. waxaa kale oo dadka kamid ah mid aamiinta imaamka kala hormara ولا الضالين آمين. ma banaana, wuu ku dambaabayaa wuxuuna ku waayayaa ajar fara badan. maxaa yeelay nebigu wuxuu sheegay qofka aamiintiisu ay aamiinta malaa'igta waafaqdo in loo dambi dhaafayo. taasina waxay ku dhacaysaa marka aamiintaadu ay waafaqdo aamiinta imaamka. ولا الضالين آمين. waxaa kale oo dadka kamid ah mid akhriskiisa salaada dhexdeedu aanu sidii la rabay ahayn, kaliya qalbigiisa uun ka akhriya oo aan debnaha iyo carabka midna dhaqaajin. waxaa loo baahan yahay markaad salaada akhrinayso inaad ka akhrido carabka iyo debnaha labadaba. waxaa kale oo dadka kamid ah mid aan dhabarkiisa simaynin markuu rukuucayo rukuuc nus ah, taasina ma banaana, waa inuu dhabarkiisa simaa. waxaa kale oo dadka kamid ah mid aan 7 xubnood ka sujuudin oo 2 cidboodna midda kale duldhiga. waxaa kale oo dadka kamid ah mid dhundhunkiisa goglaya sida aygu uu u goglo oo kale. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa mid inoo diiday inaan dhundhunkeenna dhulka gogolno. wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid dhundhunkiisa dhulka kor uga qaada oo ka fogeeya labadiisa dhinac ilaa ay ka muuqan jirtay kilkiladiisa caddaanteedu xagga dambe. laakiinse haddii uu qofku jamaaco la tukanayo dhibaato kuma jirto inuu isku dhoweeyo si aan walaalihiis uuna u dhibin. waxaa kale oo dadka kamid ah mid isaga oo salaada ku jira ku tiirsada gidaar, kaasoo haddii gidaarka ama tiirka meesha laga qaado uu dhulka kusoo dhacayo. maxaa yeelay ma ahayn mid taagan, salaadiisu waxay noqonaysaa mid aan waxba ka jirin qofka nooca u tukanaya.
waxaa kale oo dadka ka mid ah mid aan sankiisa dhulka dhigin markuu sujuudsan yahay oo dhulka kor uga qaadaya, taasina ma aha mid bannaan. waxaa kale oo dadka ka mid ah mid aan qalbigiisa iyo carabkiisu wada socon, qalbigiisu waa meel, carabkiisuna waa meel kale. mana qumana in ruuxu qalbigiisa meel kale oo aan ilaahay ahayn ku mashquuliyo salaada dhexdeeda, maxaa yeelay taasi ajirka salaada ayay dhimaysaa oo khushuucdiisii ayay meel kaga dhacaysaa. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا، وأن يتقبل منا عملنا، ويغفر لنا ذنوبنا وتفريطنا. وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه